munaasabada ciidul adxa ayaa maanta si weyn looga oogay dhammaan xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo guud ahaanba caalamka. haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga Dhagaxley ayaan kula kulmay fagaaraha weyn ee UNHCR dadkaasoo wajiyadooda aan ka dheehanayay farxad iyo damaashada munaasabada ciidul adxa. kadib markii salaada ciidul adxa laga soo baxay ayay warbaahinta halkaasi kula hadleen ayagoona halkaasi salaamo ugu direen dhammaan eheladooda iyo qaraabadooda bulshada ka soo qayb gashay munaasabada. waxaana ka mid ah hadalladoodii bulshada sida tan أحمد سيد لو يدي حرادة قحوتي اللي يحلي مانتا والله سهل عادي سهل الحمد لله صباحا مeel badan oo ruuxii magaalada weyn tahay ma sha Allah ciid waan badan dadku isla galeen sidoo ruuxiga isbedel weyn oo u jira dadka farxadooda ma aragtay wada qaybsanayaan waxaan salaamaya muslimiinta dhammaan caalamka islaam waxaan ku salaamaya madaxdeeda sida madaxweynaha wasaaradiisa iyo xildhibaanada dhammaantooda iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood salaam aad sharaf u leh loo yiiday ay bashbashi quraan loo yiiday aad caafimaad ilaahay nasiyo xawaaye si fiican ba alxamdulillah ilaahay intaana meesha isku keenay baan ku mahadinaynaa dadkii hore waxay kaga duwan tahay ka daddoon tahay way ka amni baa ilaahay naga siiyay marka si fiican oo barwaaqo marka adoo fursada ka faa'iideysanayo yaa ka salaamaysa islaam kamel kasto ay joogto ayaa ka salaamaya ciideeda kana barwaaqo bashbash in ilaahay lagu gaarsiiyo ayaan ilaahay ka rajeynaya insha Allah anaga ku soo qayb galnay adxa ilaahay markaas kale anaga ku dukanayo ilaahay ku shukrinaa jool degan aad wanaagsan leeyahay yani ciidul adha si toos ah yani lagu ila mootada ila gaaribki iyo wax walba isdamaro ciid damaashaad oo yani xerada Dhagaxley yani aad la baashalo yani ma jirta yani ciidan yani ciidul fidrki yani taayab galiti yani dad yani ciidul adha ciida ma huwa bulshadiye ba yani zaayada yani aad wadadka meel tamaro ma la gaarib iyo mootayash ma meel marayaan ma loo dijirta tanga marka yaa halka salaamaysa oo fursada ka faa'iideysanayo alxamdulillah mayka salaamad day muslimiin dhan adduunyada dacladii ruugan day mayka salaamad day salaanta muslimka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ida idii ilaahay nabiyyi aywa atoosh saad rahman oo ku nool xareenka qaxootiga gaaraan xarada atoosh ma sida loo geeyay xarada qaxootiga Dhagaxley wala ma markaan fiiriya aad baa lagu jeeday ciidan ciidii wax ku fiirina waa ciid aad oo qurux badan ciidii horta kala jabka iyo kala ciidka dhici jireen muusa dhicin dabcan waxaan dareemayaa farxad weyn oo shacabka ilmihi yaraa waalidiintood iyo kulli isla dareemaya dhalinyartii iyo nooc kasta marka loo fiiriyo magaalada maanta sidaa marka atoosha marka maanta loo fiiriyo aad baa ugu faraxsanahay waayo shacabkayga oo midaysan oo hal meel maanta ku jiray oo hal khudba isla wada dhageystay oo maanta tugeeda markaan fiiriyo waxaa misriba sanad kastaba saan ku soo mari doonaa iyadoo saan waxaan ka salaamaya dhammaan eheladayda oo meelo badan kala jira sida aabe Xuseen Cabdiraxmaan muqdisho walaashay Faadimo Xuseen oo meelo kala ayada muqdisho walaalo badan oo xaga dalida ku jiray aan salaamaya iyo saaxiibadayda si Cabdiraxmaan Xuseen Muumin oo aad u xisabo waasna meel fog ka jiray marka ciidan maxaa ka duunta ciidii hore marka ciidan maxaa ka duunta ciidii hore ee la ciidi jiray xarada qaxootiga Dhagaxley ma sha Allah ida way bariga waa kala jiray oo maartay fitriyo ka taajirtay laakiin maanta dadka dhanna Dhagaxley ku leeyahay muslimiin adduun ku nool taastan adiga way qabsan si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horeysay munaasabada ciidul adxa lagu ciido xarada qaxootiga Dhagaxley balse ciidana ayaa ka dagan ciidii hore ee xarada qaxootiga Dhagaxley lagu ciidi jiray sida ay halka u dhagaan bulshooyinka ka soo qayb gashay munaasabada xasan Umar Xasan Kaafi telefishinka caalamiga
xeryaha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari dalkani Kenya.